الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسؤال كمذا سؤاله قوس كها جرى السعودي حلقة تحانها فيسبوك. سؤال شو ما هذا هرتا الله وسؤال دينعنا حكم شرعي كه dhinacna qadiyad siyaasiya ka aho waxa siyaasaddaana markii dadku isku hayaan marba sibaa loo dhigaa, shacabkuna hadba sida loo dhigo baa laga yaabaa inay ku sirmaan. sa'aalku wuxuu leeyahay xiriirka uu nabigu sala allahu alay wasalam la lahaa yuhuudda wakhtigiisii iyo xiriirka aan la lahaan karno hadda wakhtigan la joogo farqiga u dhaxeeya muxuu yahay? qadiyadda sharci ahaan mise su-aashan waxaa hadda dhaliyey oo xiriirka dhow ee wadamo khaliijka iyo carabtiihii yuhuudday la yeesheen iyo israa'iil la yidhaahdo, oon u malaynaya su-aashani waxaa kiciyey inay tahay masalada naaxiya sharciga marka laga eego. xiriirka wuxuu noqon karaa laba qaybood: xiriir shakhsi iyo fardi ah iyo xiriir dowlad iyo siyaasi ah. xiriirka shakhsiga ee fardiga mar walba uu bannaan yahay. waxaa ka mid a sharcigu inuu ogol yahay haweenka ahlu kitaabka inay guursadaan ragga muslimka ah. ahlu kitaabkana ama waa yuhuud ama waa kristan. xaalad nabad baa lagu jira iyo xaalad colaad baa lagu jira, waxba saameyn kuma laha. way saameyn yeelan kartaa qofkan shakhsigii ee guursanayay ama la dhumiyaa iyo isaga xaaladiisa way noqon kartaa, laakiin nabad iyo colaadba xiriirkii shakhsiga ahee laba isguursanaysa dhex maraya waa bannaan yahay, waa la ogolyahay. markay aayaadka degayeen ay soo degayeenna in nabad la yahay iyo col la yahay buu isugu jireen. xiriirka shakhsiga ee ganacsiga ahna waa bannaan yahay. shakhsigu ganacsigu dhex marayo ama shakhsi caadi ah ha noqdo ama shakhsi muhiima oo madax iyo ah uu noqon karaa, dhibaato ma laha. nabigu alayh salaam intay marti qaadaan buu gurigooda ugu tegi jiray, waagay wax sunta u qariyeen. intuu wax u baahdo uga dukaanlaydihi intuu wax ka qaato bay dayn ku yeelan jireen ilaa uu dhinta nabigu alay salaam wadircuhu marhuunatun cinda yahuudiyin, isagoo tuutihiisii rahan looga haysto dayn uu qaatay oo nin yahuuda ka qaatay ganacsada ah. xiriirkaasi labaa shirkad noqon karta. shirkad baad wax ka qaadan kartaa ganacsiga, mid baad ka shaqayn kartaa, mid iyaga ah kuu shaqayn kara. arrintaana waxaad dareemi kartaan xiriirka fardigiihii waa midka mujtamaca muslimka ee dunida meelo badan kala joogaayey ahwey. mujtamaceenna gaar ahaan muslimka kale baad ka soo tagta soomaaliga ah ee galbeedka iyo wastareenka jooga deris bay yihiin, shirkaday ka wada shaqeeyaan, shirkado kuwoodaa loo shaqeeyaa, shaqo la qabsanaya qandaraas la siiyaa, looyaray u noqdaan, macallimiin baa la isu noqdaa. waxaasoo dhan waxay ku salaysan yihiin mid baa tareella lahoo shirkada yuhuudu alaabteeda ka qaada oo kiraysata. waxaasoo dhan waa heerka xiriirka fardigihii fi silmi waalxarbi wuu bannaan yahay sida guud ee mabda ah. dhacdada qaarkood waa laga yaabaa, walidaalika sharcigeennu yuhuuddu gaaladun bay ka mid tahay. dadka aan la taaban karin, amni gaarana aan u baahnayn, ganacsatada ka mida. xadiidkii jaabir ee asaxay waa ka nabig alay salaam nahaa can qatli tujaari lmushrikiin. gaalada ganacsatadooda ah ninkii wax kale ku dhexwadee lagu ogaada waa gaal. dadka ganacsatada gaalada ganacsatada aan dagaal iyo waxba ku jirin in la dilo waa la diiday. marka ganacsatada gaalada iyo mushrikiinta bay ka mid yihiin. saa darteed sharcan nabad iyo colaadba xiriirka fardigiihi waa bannaan yahay. ama ganacsi ha noqdo
ama qaybta guurkeen soo sheegnay ha noqdo ama wax kaloo dhexmara ha noqdo. taasi waa qaybta koowaadoo xiriirka fardiga. shardigiisu waxaa un weeye in xiriirka fardiga ee lala yeelanayahay ummadda uusan dhib kula soo laabanin. qaybta siyaasiga marka la dhaho waxaan uga jeedaa dowlad muslim ihi yuhuud ama dowladtooda xiriir ma la yeelan kartaa. xiriirada noocaas oo kaleetihi waxay ku xiran yihiin maslaxada iyo mafsadada iyo heshiisyada lala galo. heshiisku wuxuu ku xiran yahay maslaxa iyo mafsada. yuhuudna wax gaar ku ah ma jiro, yuhuud kristan gaalo kale leh. mucaahadaadka iyo sulxigu miisaanka sharcigu waxaa weeye maslaxa iyo mafsado wey. maslaxada iyo mafsadadana waxaa saameynaya darafka lagu jira iyo awooddaada iyo tabartaada. markaad xoog leedahay waxa maslaxadda lagu miisaamo iyo markaad tabar iyo itaal daran tahay waxa maslaxadda lagu miisaamo way kala duwan yihiin. ninba miisaankiisa ay masaartiisu goysaa wey. cadkaaga waxaad goosan kartaa hadba inta itaalkaaga iyo tabartaadu tahay. saas darteed waxay ka mid yihiin dadka gaalada ah ee heshiisyada lala galayay ka mid yihiin. marna waa bannaanaanayaa hadday maslaxadiisi iyo manfacadiisu raajix tahay, marna xaaraan buu noqonayaa hadday mafsadadiisu raajix tahay. intaasi waa inta xukumka iyo mafhuumka sharciga islaamiga ah weeye. laga yaaba saa'ilku inuu weydiiye hal qadyadaan raaciyo waxa keenay ah. waxaa hadda imaaraad iyo baxrayn ba heshiis la galay ee la buunbuuninayo dee wax diin ku shaqalena ma aha. kuwa buunbuuninayana wax ay run ka tahay ma ahe been wey. dhowr arrimood baan rabaa inaan dadka dhagaystayaasha ahee xogta khaldan iyo mahabaabinta lagu samaynayo taabsi dareensiiyo. kow, dalalkani waxa ay samaynayaan diin ma matalaan. tii iyagu ay maamulayeen diin kuma dhaqaan. marka diinta uu ku miisaamaya ee ku dhaqaya markuu dad kale la heshinaya xaggee ka iman? ama kuwa galaya ama kuwii horey u galay ama kuwa aan gelin. mid isagu intii uu maamulay iyo dalkii uu xukumay iyo dadkii muslimka ahaayee uu mas-uulka ka ahaa aan diinba ku dhaqaynin, diinba in badanoo diintii ka midana kala dagaalamaya. markuu dad kale la dhaqmayo inuu diin ilaaliyaay xaggee ka iman? saa darteed hadday la dagaalamaan iyo hadday la heshiiyaan diin shaqa kuma laha. oo marka koowaad doonaya dadka muslim ahaan inaad u ogaataan. marka labaad, waxa hadda la dhacayaay wax colaad ka horeysay oo hadda la heshiinaya ma dhammaan heshiis bay wada ahaayeen. kuwan hadda la galayana horey heshiis u ahaayeen, kuwa ku shidayana horey heshiis ula ahaayeen. yuhuudda aad ka hadlaysaan hadda masar horey safaarada u kala qaateen, safaarada u wada samaysteen. 1980kii heshiiskii Camp David wixii ka dambeeyey safaarada yaalla marmar xiriir xumaado la isku dhacdhaca laga tago. urdun safaarada ay isku leeyihiin. qatar safaaradda israa'iil baa ka furayd, magaca xafiiska ganacsiga ay ku furayd. waa dhexdaasaa la xiray, wafdiyadoodii iyo wasaaradooda yimaad. turkiya safaaradahoodii baa ka furan oo xiriir bay leeyihiin. morocco way leeyihiin. saltanada cumaan waa leeyihiin. marka maxaa been laysugu sheegi? kuwan kale hadda laleeyahay ku dhawaaqayana way leeyihiin. waxaa la buunbuuninaya masar baa gashay, mar labaad urdun baa gashaa la buunbuuninayey, haddana imaaraad iyo baxrayn baa la wadwadaa, berrina kuwo kalaa la wadwadi doonaa. waxa hadda la samaynayo iyagu marka horeba heshiis iyo saaxiib bay wada ahaayeen. shaahna waa wada cabi jireen, labadii rabtana kalaabka iyo khamriga wada shuban jireen. sheekaduna waa isugu bixi jireen, isku ajandana way ahaayeen.
shucuubtiibaa colaada laga saaraya intaa keliya waay in laysdhex galo laysdhex maro baa caadi laga dhigayaa shucuubtii curuuba lalahaa baa hadda laga saaraya. masaladu masale islaam iyo diin ma ahayn. masale islam diin ahayn waxaad ku garanaysaan oo kale haddii la yihahdo yuhuuddu dhul muslim bay haysataa, imise wadan oo gaala ah dhul muslim haysata? hindiya soo kashmiir ma haysato? china sooma gobolka igor iyo turkistan sharqiya ma haysato? imise wadan baa dad muslimiina xoog ku haysata oo cadaadisa oo xoolahooda boobta oo dadkooda laysa, xiriir fiicanna lala leeyahoon laisweydiinaynin. hadda ma garatay haddaba in mas'aladu dhul islaam baa la haystaa ma aha. waxaan ku gabagabayn lahaa mid kale. waxaa la yidhi falastiin baa la haystaa, yuhuud ha la heshiinin. iyagii baa la heshiiyey, iyagii baa ooslo la fadhiistay, iyagii baa heshiis la soo galay, iyagii baa la shaqaysanaya. marka anigiina haystayna waan la heshiin, adigii banaanka ana lama heshiin kartid. anu ma garanayda meesha laga qoro. qadiyadan islaam baa laga saaray falastiin, qadiyad carbeed baa laga dhigay. aan kusoo gunaanado dowladahan carabtu markay xuduudaha kala samaysteene loo kala sameeyey, mid walba wuxuu qiray oo la taagan yahay anu inta xuduudeeda keliyaan matala, laa carab kale ma matalo walaa islaam kale ma matalo, intanaan matalaa keliya. saa darteed nin dhihi anaaba xataa dhulka muslimiinta guud matalana ma jiro, ninku dhihi anaa falastiin matalana ma jiro. ninka falastiiniga hadduu yimaado nin wadankiisa u ogolla ma jiro, wada tarxiilayaan. jinsiyadanaysayaan way u diideen, iqaamanaysayaan way u diideen, wadankii bay ka wada tarxiilayaan. muxuu yahay danta uu falastiin u haya marka kan? war waddankan waa horaa la gatay, nimankanna waa horaa lala wada heshiiyey, waana shuraka iyo saaxiibo wada shaqaysta way. kan ku shidaya iyo kan kale hadda qatar iyo khaliijkani way isku dhacsan yihiin. saa darteed baa jaziira tooshka la isugu shidayahay. iyaguba way la shaqaystaanoo kuruskay la cunaan, shaahna way la cabaan, soorta iyo canjeerada iyo suugaduna way isugu wada jirtaa. masaladu hadday islaam yimaado iyo dowlad islaam matasha, dhulalka muslimiinta la haysta iyo muslimiinta la gumaystoo dhan hadba intay awoodo say u difaaci lahayd, xaqoodana u soo celin lahayd, iyo xukun sharci ah bay ka shaqayn kartaa. inta ka horeysana meesha ay xukunto bay sharci iyo diin ku dhaqdaa. adigu waxaad muslim u qaban karta u qabo, ciddii muslim dhibtoo dhanaad nici kartana nac.